السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. habeenimo wanaagsan idil ahaantiima meel kastood ka joogtaan caalam war waxaan caalamkeedii ka inay ku soo dhawaada youtube-keenan badiya bari channel wararka caalamka waxa ugu dooroon Mareykanka iyo Iran iyo warar kale oo caalamka ah wararka idin hayno waxa ugu dooroon Mareykanka waxaa jira war cusub oo ku saabsan isbeddelka suuqyada dalxiiska dalal ay ka mid yihiin Canada iyo wadamo kale oo Yurub ah ayaa hoos u dhigay safarada Mareykanka taasoo saameyn ku leh goobaha dalxiiska ee Mareykanka. Sidoo kale, madaxweyne Donald Trump ayaa ku hanjabay inuu isticmaali karo Insurrection Act si uu ciidamada ugu diro Minnesota si loo joojiyo mudaharaadada ka dhashay howlgallada ciidamada socdaalka ee gudaha. Sidoo kale, Mareykanku wuxuu Iran ku sheegay golaha ammaanka ee qaramada midoobay inay dhammaan ikhtiyaar miiska saaran yihiin ee ku saabsan jawaab celinta falalka Tehran. Sidoo kale, heshiis ganacsi oo u dhexeeya Mareykanka iyo Taiwan ayaa hoos u dhigay cashuurta qaar ka mid ah badeecooyinka si kor loogu qaado maalgelinta, taasoo keeni karta saameyn weyn oo ku saabsan warshadaha tiknoolajiyadda. Sidoo kale, waxaa jira dhacdooyin kala duwan oo ka socda Yurub sida duulaan dhanka hawada oo Israa'iil ka geysatay Gaza oo sababay dhimasho. Sidoo kale, ciidamo Yurub ah oo gaaray Greenland si ay u xaqiijiyaan amniga Arctic. Sidoo kale, xiisado ku saabsan siyaasadda amniga ee NATO, gaar ahaan xiisadda u dhaxaysa Mareykanka iyo Denmark oo ku saabsan Greenland, ayaa weli hadalhayntu socota. Sidoo kale, waxaan soo galay wararkii South Africa. Rakaabka wararka waxay tilmaamayaan in roobab iyo duufaano xoog leh ay ku dhinteen in ka badan 100 qof oo ku sugan Koonfur Afrika, iyadoo saameyntu si weyn u gaadhay South Africa, Mozambique iyo Zimbabwe. Sidoo kale, madaxweynaha Somaliland ayaa baaq culus u diray shacabka isagoo ku booriyay inay u diyaar garoobaan difaaca qaran iyo ilaalinta madaxbannaanida Jamhuuriyadda Somaliland. madaxweynaha oo hadalkiisa sii wata waa kan Ebeler daawada. aniga iyo shacbigaygu yar iyo weyn, rag iyo dumar, waxaanu diyaar u nahay aniguna aan ku horgelayaa inaan dhiigayaga iyo naftayada ku difaacno dhulka Soomaaliya. waxaan shacbiga ugu baaqayaa inay u diyaar garoobaan difaaca qaranka. waxaan hoosta ka xariiqayaa inaan Somaliland cidna duulaan ku ahayn. cid kasta oo duulaan ku soo qaada Somaliland waxaanu bari doonaa casharo aanay weligood ilaawin. dowladdii kacaanka ahayd ee Maxamed Siyaad Barre waxay dunidu u qirsanayd inay ahayd dowladdii ugu xoogga weynayd Afrikada Madow. bal Soomaalidu ha isweydiiso xagii ku dambeeyey dowladdii Maxamed Siyaad Barre. waxaan is leeyahay dowladda xabaasheedii Hargeysa ka qodan tahay, dayuuradihii iyo taawangiyadiina waxay sulan yihiin suuqyada Hargeysa. hadraawina markii ugu dambeysay ee Siyaad Barre la hadlayay markuu ciidamadii ku soo dhameeyay Hargeysa iyo Burco, wuxuu ku yidhi keen dabaabadii hadhay. aniguna waxaan leeyahay bal xasanow maanta keen dabaabadii hadhay. anigu laasacaanood duulaan kuma ihi meel lagaga soo duulo Somaliland. waxaan u mahadnaqayaa madaxweynaha Puntland oo aan ka wada shaqaynayno nabadda iyo xasiloonida gobolka. dardaarankayga ugu dambeeya waa midnimo, waa difaac qaran iyo inaynu u diyaar garowno
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dalka Sacuudi Arabiya ayaa wada hadallo dhammaystiran la galay dalka Soomaaliya iyo Masar si ay u sameeyaan isbahaysi militari oo cusub taasoo ujeedkeedu yahay xoojinta ammaanka gobolka Badda Cas. Sidoo kale garaadka guud ee beelaha dhulbahante garaad jaamac garaad cali ayaa 2 jeer ka maqnaa munaasabado muhiim u ah si weyn oo loo qorsheeyay taasoo dhalisay tuhun ah inaanu ku qanacsanayn jihada siyaasadeed ee fiila Soomaaliya iyo qaabka arrimaha sool loo maamulayo. Maqnaashiisu waxay muujinaysaa khilaaf qoto dheer oo u dhaxeeya garaadka iyo fiila Soomaaliya waxaana suurtagal ah inuu salugsan yahay aragtida ka duwan tan dawladda ee uu isagu qabo. Wararkan laga soo gaaray Puntland waxay sheegayaan inay xidhatay xuduudeedii. Sidoo kale balileer daawada wiilkan wuxuu falanqeynayaa wixii Firdhiye meesha ka sheegay maanta. war degdeg ah madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo saacada ka hor gaaray magaalada Laascaanood ayaa hadda ku amray madaxweynaha waqooyi bari Firdhiye iyo maamulkiisa inay soo wareejiyaan maxaabiista Somaliland ee ku xiran xabsiga dhexe ee magaalada Laascaanood. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa u sheegay Firdhiye iyo maamulkiisa inuusan ka qayb galin caleema saarka Firdhiye ilaa lagu soo wareejiyo maxaabiista Somaliland ee ku xiran magaalada Laascaanood. Firdhiye iyo kooxdiisa ayaa wajahaya cadaadis siyaasadeed oo uga imaanaya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. haddaba la socda wixii ka soo baxa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu u qabtay muddo 12 saacadood ah in la saxiixo in lagu wareejinayo maxaabiista Somaliland ee ku xiran magaalada Laascaanood. daawadayaal war waxaan caawidiin haynay waa naga intaa tan inta dib u kulmayno habeen wanaagsan. Please subscribe, like, share and comment. Kor kiciya baalka. Bye.